السلام عليكم. maalin soon ah ayaan la kulmay xaaskayga anoo halmaansan laakiin xaasku way ogay wayna ii aamustay oo iima sheegin. marka ayadii ogayd maxaa ku waajibaya? adigana maxaa kugu waajibahay mala gabadha masaladeedu soo raadinaya isaga tiisiina waa halmaamay ninkaas. isaga aan ku bilaabay maadaama isagu gabadha ka bilaabay isaga aan ka bilaabay isaga ishalmaamay ee xaaskiisa u galmooday isagoo ishalmaansan. culimada qaar ka mida waxay leeyihiin sida cunidda iyo cabitaankay la mid tahay oo soonkiisa wuu wadanayaa qiyaasan cala alطacaami waasharaab. iyo sidoo kale qaacidadii kulliga ahayd oo halmaanka ilaahay ummaddan uma qabto, rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na. alla wuxuu yidhi kamaa fii saxiixi muslim qad facaltu, waan yeelay. allow halmaan ha noo qabanin, ismootiisna ha noo qabanin. alla wuxuu yidhi waan idinka yeelay taa iyada. marka sidaa culimmada qaar baa marinaya, waana sida xoogga badan waaye. halmaan shaygii soonka jebinayay hadduu ruuxu u sameeyo noocuu dooniba ha noqdo, ruuxaasi soonku ka jabi maayo. saasaa masalada ugu xoog badan. tan kale iyo xaaska u aamustay ayadu marna waa dembiile marna soonkii uu ka jabay. laakiin maxaa ku laasimaya? culimada qaar ka mida waxay leeyihiin kafaaradii baa ku laasimaysa. waa sida bacdu ahlilcilmi ay qabaan, hadday tahay daakiro tahay mutaawicana tahay. mutaawica waa haddaan la qasbin waayo. yacni hadday xusuusan tahay isla markaana uusan qasbin oo barnaamijkaba iyadu wadatay ama ay wax ka waday, markaa isaga ah kafaaradii waa lagu leeyahay bay culimmada qaar qabaan, oo in ay qoor xorayso. ramadaanku markuu baxo hadday qoorta weydo hadda lama mehelee, ramadaanku markuu baxo 2 biloodoo isku xiga inay soonto. hadday kari weydo in 60 miskiin ay quudiso. maalinkii ay jabisayna waa inay qallayso isagana. hawl adag baa markaa ku furanta. intaa waxaa u dheer inay ilaahay dembi dhaaf weydiisato ee toobad keento. ya waxoogaagii yarka ahaa ee isaga dhanba sakanada ahaa baa waxaasoo cunaysa ka dhashay. ya marka iyadu khaladkay gashay, laakiin asagu waa naasiyo waa macduur. wallahu aclam.